بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. kulantaha bandawda lidil ahaantiinba waxaan doonayaa inaan idin sheego hadii Allah wada ogolaado chance fara badan inuu soo baxay bishan maadaama afar week la isfasaxay afarta week waxaan aad ugu dadaalayaa habeen kasta inaad muuqaalkiisa aad iga heshaan maadaama xaqii jaamacada iyo howlaha kale baay aad iga fasaxayeen marka midda waad ku talagaleysaan waxaan halkan ka sii wadaynaa sheekadeen takoor inuu mareysay qaybta 11aad maanta saynu qaadan doono ama dhageysan doono qaybta 12aad Allah wada ogolaado waxaan aad idin xasuusinayaa sheekadu inay ku dhowdahay gabagabo isla markaana halkii ugu macaanay ay marayso waxa qaybtan ku bilaamaysaa sida ayuuni caawo farxadeeda idima qiyaasi karto waxay leedahay meel aan rabay roob ma igu daay kaligeed ayay qolkeedii fadhidaa caawo in ay seexato ma rabto warkanna ma qarin karto inay cid u sheegto ayay rabtaa se ma hayso cid ay u sheegto waxay isweydiinaysaa sidii ay hooyadeed ugu sheegi lahayd ayuuni saaxiibo ma leh ma jecla inay dumarka la saaxiibto adduunka waxay ugu jeceshahay waalidkeed ayaga ayay ku sirqarsataa oo la tashataa caawo hurdo way kala tageen dhulka way ka kacday samadase may gaarin waxa ay go'aansatay warkan inay hooyadeed u sheegto marka waagu dilaaco waagii ayay sugaysaa ma doontaa ayay isleedahay markiiba waxaa ku soo dhacday maankeeda sheekadii ninkii waaga doonay waxa la yiri bariba waxa jiray laba nin oo doqmo ah habeenada kamid ah ayaa hooyadood xanuunsatay kadib mid baa yiri war adigu hooyo la sii joog oo wadka ka sii ilaali aniguna waagan doonayaaye haye ayuu yiri kii kalena kii sidii ayuu waagii ku doonay kii kalena islaantii ayuu iska sii dul fadhiistay wax uu dul fadhiyaba islaantii wadkiiba u yimi oo way galbatay markii walaalkii soo noqday ayuu yiri war islaantii meeday inta kii aamusay ayuu ugu warceliyay war way dhimatay inta uu carooday ayuu yiri war anigu waagii keenaye adigu islaanta wadka miyad ka celin kari weyday ayuuni inta ay dhool cadaysay ay barkinteedii la gashatay hal mar ayay su'aal isweydiisay oo istiri arrinkan sidaad waalidka ugu sheegay xogaa xishood badan ayay dareemaysaa haddana hooyadeed Xaliimo ayay xasuusatay waa cid kaliya ay arrinkan ka caawin kartaa ayada hadday u sheegto waxba ka xumaan maayaan ugu dambeynna waxa ay go'aan ku gaadhay inay hooyadeed u sheegto waagi ayaa dilaacay ayuunina dhaayaha ay kala qaaday dhankii hooyadeed ayay u soo kacday saaka waxay rabtaa in ay arrimo badan fashiliso hooyadeed ay madbaxa ugu gashay gacanta inta ay qabatay ayay dhankii qolkeeda ula soo roortay hooyadeed waxay isweydiinaysaa ayuuni waxa helay ilaa haddana may garan ayuuni ayaa warkii oo dhan hooyadeed u sheegtay hooyadeed warkaa way ku faraxday aadna way u soo dhaweysay arrinkaana aabbaha anaa u sheegaya ayay ku tiri waa intii ay ayuuni rabtay way ogeyd hooyadeed inay hawshan ka caawinayso ayuuni hooyadeed warkii qoyska oo dhan ayay gaarsiisay qoyskii waxa uu isu diyaariyay aroos guriga oo dhanna farxadda ayuuni ayaa haysatay qoyska ayuuni aad ayuu arrinkaa ugu diyaar garoobay axmedna waxa uu la soo hadlay ayuuni aabaheed waana la ballamay ayuuni aabaheed garan maayo raggan inanta ka soo doonaya reerka ay yihiin oo ayaga ayaan u sheegin aad ayuu qabiilkooda isu weydiinayaa haddana golaha inta la isugu imanayo ayuu sugaya axmed dhankiisa warkii waxa uu la wadaagay aabahii arrinkaas aabahii waa uu ku farxay waanu weydiiyey inanta qabiilkeeda axmed waxa uu sheegay in aanu garanayn cidda ay tahay balse uu ku helay arrinka axmed aabahii waa uu ka cadhooday inanta ciddeeda inuu ogaadana in ay muhiim tahay ayuu u sheegay axmed waxa uu ku qanciyey in hadda dadkii ilbaxay oo qabiil iyo waxaasna aanay muhiim ahayn balse axmed aabahii arrinka uu ku adkaysanaya axmed ma garanayo sababta aabahii arrinka ugu adkaysanayo axmed aabahii isagoo cadhaysan ayuu ku yiri halkaa wixii ka yimaada adiga ayaa mas'uuliyaddeeda qaadaya odayga wiilka dhalay arrimo qabiil ayuu ka cabsanaya wiilkuse arrinka lama qabo oo isagu waxa ma aaminsana waa nin muddo badan wax baranayay hadda waa aqoon-yahan haysta hanti ku filan ma filayo isagu waxa aabihii filanayo xilligii ballanka ayaa la gaaray waa khamiis saacadu waa 6 subaxnimo axmed saaka xilli hore ayuu kacay waa uu diyaar garoobaya axmed waxa uu heliyay adeerkii iyo walaalkii waxa la ballamay 8 subaxnimo waxa uu rabaa goobta inay uga sii horeeyaan
qoyska inanta ha la dhaqsado ayuu leeyahay. waxa uu cabsi ka qabaa in ay daahaan. dhanka kale Cayuuni aabaheed, walaalkeed iyo adeerkeed ayaa ayana istiyaarinaya. dhankii goobta meherku ka dhacayayna waa la isugu yimi. intaasi kadib maxaa dhacay? qaybteena ku xigta ayaynu ku sii korfayn doonaa. intaan tan lamid ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.